kulan waxaan wanaagsan mar kale aqyaartana daawanaysa meel kasto aad ka joogtaan daafaha dunida kuna soo dhawaada mar kale barnaamijyadeena taxanaha ah oo ku aadan hambalyada telefishinka caalamiga Kalsan oo dhawaan si rasmi ah hawada ugu soo biray barnaamijyadan oo ah kuwo qaybo kala duwan aynu ku eegno iminka waxaanu jecelnahay inaynu bal ku eegno xarunta golaha shacabka ee Muqdisho oo xildhibaano ka tirsan ay si aad ah u soo dhaweeyeen telefishinkan hadaba wariyahayaga Xamdi Xuseen Farax ayaa maanta waxa ay booqatay xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho xilligaas oo markaasi ay ku sugnaayeen xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka mikrofoonka ay la qaaday waxaana ay markaasi wax ka weydiisay telefishinka Kalsan iyo aragtidooda laakiin intayna aynu u gudbin aragtida kala duwan ee xildhibaanada iminka waxa si toos ah studio u fadhisa Xamdi bal waxa jecelahay maanta maadaama ay booqatay xarunta golaha shacabka waxyaabaha ay kala kulantay iyo xildhibaanada sida ay u soo dhaweeyeen Xamdi soo dhawow aad baad mahadsan tahay Mukhtaar Xuseen Maalin maanta waxaan ku faraxsanahay inaan soo fadhiisano dhammaan daawadayaashana aad baan u salaamayaa marka xigta koox wariyaal oo ka tirsan Kalsan TV waxay u kala dhaqaaqeen xarumaha ama degmooyinka magaalada Muqdisho si ay u soo gaadaan arahda dadweynaha saakani waxaan u dhaqaaqay xarunta golaha shacabka halkaasi waxa soconaya kulan ay baarlamaanka Soomaaliya shirayeen oo laga hadlayay xaaladda dalka Soomaaliya waa Xamdi sidoo kale kulankaasi markii ay dhameysteen baarlamaanka waxay si aad u soo dhaweeyeen in TV-ga Kalsan TV oo wada ku soo biiro isla markaana mudanayaal badan aad ka arki doontiin codkooda Kalsan TV xillihin Soomaaliga qalbi wanaag lagu dhahaa marka waxaan rajaynaynaa leeyihiin in qalbi wanaagsan oo kula shaqeeyo ummadda Soomaaliyeed Kalsan af Soomaaliya waa laabsan weey mar hadaa laab furantiin oo qalbigiinu uu wanaagsan yahay oo uu u furan yahay wadaniyad Soomaalinimo dad jacayl dalku see u hormaraa dhibaatada see looga baxaa kal iyo san waa kelimad wanaagsan weey marka la furnaantaas iyo kalsamidaas baan filayaa inaad ku shaqeyn doontaan waaya Xamdi intayna u guda gelin muuqaalada kala duwan ee xildhibaanada baarlamaanka iyo aragtiyadooda ka hor intii aydan u gudbin xarunta golaha shacabka maadaama goobo badan oo security la sugayo wax caqabad oo la kulanteen ma jiraan waxaan filayaa in dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir de kulay waa la yaqaanaa Soomaalina waa istaqaanaa meel Soomaali ay joogto loogama xirmaysan inaan galno ama dhibaatooyin aan kala kulanno saaka waa dhaqaaqnay aniga Ismaaciil si nabadgelyo waxaan ku tagnay xarunta golaha shacabka sidoo kale ciidanka security sugay iyo dhammaan dadka ka shaqeynaya shaqaalaha waxay soo dhaweynayeen TV-ga cusub sababtoo waxay soo jiidanaysaa qof walba looga yeesan wada waxay arkaysaa Kalsan TV erey Kalsan su'aal dhalinayo intii loo gula gelin baaritaanka iyo howlahaas gudaha gelin Kalsan waxna lagu weydiin inaan sharaxno waa Kalsan qofku muxuu fahmi karaa waa qalbi wanaagun marka taasaan sharxin intii aan soo socon intaas caqabado bis aan la soo kulan caqabad kale ma jirin waaya laakiin Xamdi Kalsan TV ma dhihi karaa in macnaha eragaas aad ka soo dhaxashay macnaha xildhibaanada markii aad wax ka weydiisay iyagoo qodooda mise awlaad hore maskaxda ugu haysay wallahi wax badan baa jiro hadda ka hor Amazon baan tagnaanay Shariif kaasa waxa dhacday in Amazon teeda Kalsan TV xogaa eragaas dad Soomaaliyeed wala shaqeeyaan Amazon teeda kaasa ligu yiri eragaas Kalsan TV sharax bal Shariif baan deenayaan ku yiri way marka Shariif baa Kalsan TV asna sharxay marka baarlamaankana waa codadka soo socdo mudanayaal badan oo xanka ah magaalada Muqdisho guud ahaan dalka Soomaaliya erayga bay sharxayaan intii macnaha aysan soo dhawaadaysan in xilay Kalsan TV eraygaas wuxuu noqday aad loo sharxo oo noqday eray laga soo shaqeeyay waaya aad baad mahadsantahay Xamdi bal iminkana waxaanu jecelnahay inaynu markana u dhaadhacno aragtida kala duwan xildhibaanada baarlamaanka ee maanta mikrofoonka ay la dhax qaaday wariyahayaga Xamdi Xuseen Farax mudanayaasha baarlamaanka sidee bay u soo dhaweynayaan TV-gan aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan rajaynaynaa in aad u shaqeyn doontaan danta guud bulshada adinkoo kaalin buuxda ka qaadan doona mideynta iyo gaaridda ujeedada sidii loo hanan lahaa qarannimo buuxda oo dalka Soomaaliyeed oo dhinac walba ka dhameystiran xag dhaqaale xag horumar iyo xag nabadgelyo inta
maxaa is leedahay tala ahaan tviyadii kale ee soomaalida barnaamij uga duwan aad dhihi lahayd in loo soo daayo bulshada kaasi waa mudan yahay wallaahi warbaahinta waxaa la yidhaha waa mindi laba af leh haddii si xun loo adeegsadana waa tan ka shaqaysa burburka iyo kala tegidda ummadda haddii sida wanaagsan loo adeegsadana waa midda keenta midnimada iyo quwadda iyo horumarka ummadda soomaaliyeed marka waxaan rajaynaynaa idinkoo ka cashar qaadanaya wariyaashii iyo idaacadihii idinka horreeyey inaad qaadi doontaan tubta habboon wax u taraysa ummaddiinna iyo dalkiinna intaba mahadsantahay weli mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya waxay u hambalyeynayaan tv-ga cusub ee hawada si rasmi u soo galay Kalson TV dhinacayga waxaa taagan xildhibaan cabdullaahi colaad rooble waxa uuna ka hadlayaa aragtidiisa ku aadan tv-gan cusub bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan aad ugu hambalyeynayaa tv-gan cusub ee Kalson mahad ballaaran anigoo ku hadlaya magaca baarlamaanka iyo magaca guddigayga waxaan rajeynayaa inuu ummadda wax badan oo u qaban doono oo ka qaftiri doono baahiyada jira dhammaan dhinaca siyaasadda dhaqaalaha waxbarashada dhammaan arrimaha bulshada dhan inuu wax badan ka qaban doono rajeynaya insha Allah haddii ilaah yiraahdo waxaan leeyahay hambalyo xilana su'aasha aan mudanayaasha dhan weydiinay waxay tahay maxaad jeceshiin barnaamijyada ka baxa tv-yada kale af Soomaaliga marka laga reebo fikrad kale oo tv-ga cusub aad ku soo biirinaysaan niyadiina ku jirto runtii tv-yada inta badan waxay culays ka saaraan xagga xayeysiinta iyo siyaasadda waxaan jeclaan lahaa tv-ga inuu culayska inta badan saaro xagga arrimaha bulshada iyo caafimaadka iyo waxbarashada inuu inta badan culayska u saaro oo tv-yada kale kaga duwanaaday iyo suugaanta Soomaaliya aad culayska u saara jeclaan lahaa weli waxaan ku wada jirnaa hambalyeynta ay u sameynayeen tv-ga cusub ee Kalson TV mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya haye xildhibaan ku soo dhaw run ahaantii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waa hadda kullee inay meediyaha noo bato anaga wanaageenu noogu jiraa aadaan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay welcome meediyaha inaad soo ragahashaan warbaahinta waxaan is idin rajeynayaa shaqooyin inaad qabataan shaqooyin wacan oo fiican oo wanaagsan barnaamijkee jeclaan lahayd in lagu soo biiriyo ama uu ka mid noqdo barnaamijyada ka bixi doona Kalson TV waa run ahaantii waxaa fiican maadaama anaga baarlamaanka aynu matalno shacabka inaad warbixin ka keentaan ama klibyo oo panoramic ah gobolooyinka qaabyaha ay yihiin deegaanada xoolo dhaqatada beeralayda in waxyaamihii mujtamaceena maaragtay inay markasta inaad soo badisaan si ay u noqoto maaragtay insha media on kaata weli waxaan ku guda jirnaa xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho sidaad arkaysaan mudanayaal ka tirsan baarlamaanka ayaa koox meel u taagan iyagoo doonaya inuu hambaleeyaan tv-ga Kalson TV mudane ku soo dhawaad waa dhownahay marka waxaan ilaahay hambalyo soo dhawaad aad iyo aad ugu faraxsanahay inay tv-yadu noo bataan oo dadka akhbaarta gudaha ka jirta loo tabiyo dal iyo dibadba aad iyo aad ay muhiim u tahay rajeynayna marka insha Allah ku jireen inaad kaabi doontiin dad cusub oo ku horeysan gaarin insha Allah inaad gaari doontiin marka soo dhawaad barnaamij oo kugu jiro aad xiiseenayd in laga mid dhigo barnaamijyada Kalson TV wallahi fiicnaaleed waxyaabaha aadka muhiimka ah inta badan oo dhacdooyinka siyaasadeed waa la qaataa laakiin ka hadalka arrimaha bulshada iyo dadka dhibaatooyinka ay qabaan iyo deegaanada la tago waxaan isleeyahay weli kumaan arag tv-yada intooda badan in jaanis la siiyo way fiicnaaleed si dadka baahidooda loo ogaado jaanisna loo siiyo inay dareenkooda cabiraan adduunka hadda dadka jira Soomaalidaana ay ra'yi uga qaataan ay uga qabaan waxa gudaha ka jira intay la egyihiin weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii hambalyeynta tv-ga cusub ee Kalson TV waxaana ku sugnaa xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho hadda waxaa dhinaciga taagan mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Xuseen Carab Ciise ahaan jirna wasiirkii gaashaandhigga Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare ku-xigeen aad bay u garanayaan daawadayaasha markan sidee baa aragtaa Kalson TV والله وأرتوكم هذا علنيا وحنا أركارنتي وحي هيد فرد مهمة أو كان فرد مهمة أو دمانتنا قدامي ولا أركت خطبة رنتي عقيبة لما كتشي دي ماشى إن مهمة هذا النوت على حوي برلمان كأنه هوش سي شغل سي لو أجمد وكسبحه لأن الشعب أدوا وهويهن مركا أنا روحن هو إن وحنا لو شغل سوقت إن كسبحينه شعب الصومالي رنتي أن كشغل ندمت هذا tv-gan hawada ku soo biiray cusub ee Kalson TV baarlamaanka Soomaaliya see u soo dhaweynayaan wallahi annagu waa soo dhaweynayna tv-ga cusub runtii muhiimadiisa waxa weeyaan in noqoto ma garanaysaa tv runtii shacabka u adeega runta ka hadla siyaasadda dhexdhexaad ka noqda
oo runtii wax lagu yaqaan ma garanaysaa wariyaasha iyo idaacadaha hadla sameeya waa soo dhaweynayna annagu dhaana waxay noo keenaysaa in maaragtay marka tartanka ka dhaxeeya TV-yada ay si badato taasna faa'iido ugu jirta shacabka marka waa soo dhaweynaynaa insha Allah waxaan rajaynaynaa wada shaqayn fiican fikir gaar ah la ilaahay leeyahay waxa ku haboon Kalson TV laga soo daayay barnaamij noocaas ah oo ay xiiseynayaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee halahayn siyaasiyiin iyo bulshada qaybadeeda runtii waxa wanaagsan markasta in loo yeero mas'uuliyiinta in loo yeero dadka bulshada maaragtay laga yaqaano ganacsatada siyaasiyiinta cid kasta oo laga hadlo runtii marka waxa dalka hor yaalla ama ha noqoto dhaqaalaha xaqiisa ama siyaasadda ama maaragtay amniga waxay doontaan noqotay shacabku way danaynayaan inay ogaadaan ra'yiga runtii dadka talada haya marka runtii maaragtay waraysiyo noocaas la sameeyo oo laga hadlo markana waxaa agteeda taagan mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan gaarana oo si weyn ay u garanayaan miidiyaha magaalada Muqdisho iyo guud ahaan wadanka Soomaaliya bal xildhibaane TV-ga Kalson ku soo dhaw بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد بعد adeer waxa weeye waan soo dhaweynaynaa TV-ga Kalson af Soomaaliya waa laabsan weeye mar haddaa laab furantiin oo qalbigiinu uu wanaagsan yahay oo uu u furan yahay wadaniyad Soomaalinimo dad jacayl dalku see u hormaraa dhibaatada see looga baxaa kal iyo san waa kelimad wanaagsan weeye marka la furnaantaas iyo kalsamidaas baan filayaa inaad ku shaqayn doontaan oo TV-yadii iyo warbaahintii kale ee localka ahayd iyo kuwii qarankaba runtii ka qaatay dib u soo celintii ummadda Soomaaliyeed iyo xilligii ku meel gaarka ahaa iyo hadda oo ku meel gaarka laga baxay in badan ay ku geeriyoodeen xil gudashadaas qaran waajibaadka qaran ay ku guuleysteen in badan ay wali hawshooda wataan dhammaan waan u hambalyeynaya idinkana waxaan rajaynayaa inaad kaalintaas geli doontaan oo aad buuxin doontaan waxaan idinkula dardaarmayaa warbaahintu waa seef laba afle weeye marka wanaaga horumarka khayrka wadaniyadda Soomaalinimada naxariista raxmadda wanaaga loo adeegsadana waxa weeye warbaahintu waa qayb muhiim ah weeye bulshada wax badan oo aan aniga gaarsiin karin meel baad idinku gaarsiin kartaan haddii dhanka kale loo adeegsado in mucaaradnimo iyo hadalka ninka mas'uulka qofka mas'uulka marka la wareysanaya halka eray ee qaabka daran in la boombooniyo ee bini'aadamka lisaankiisa ka soo baxay in la boombooniyo haddaa cadaysataan waxay noqonaysaa idinkuna inaad yacni sumcad xumo idinku dhacdo waxaan is leeyahay arrimaha bulshada waxyaabaha arrimaha bulshada looga hadlo oo dhan waa muhiim bulshada sida horumarintooda waxbarashada caafimaadka muxuu ahaa ii sheeg wixii bulshada manfac ugu jiro siyaasadda oo kale dabcan waxyaabaha ummadda horumarkeeda uu ku jiro in lagaga hadlo inaad qabataan waxyaabaha muhiimka ah ee markuu soo galo oo u baahan in dadka ama dood la geliyo ama si loogu sameeyo barnaamij ay dadkoo dhan ku gaaro codkaas uu ku gaaro wax muhiim ah ummadda ay gaartay ama siyaasad ha noqdo ama wax kale ha noqdo ama amni oo horumara inaad maaragtay qaabka u gaarsiin leedahay aad ka shaqaysaan saasaan soo jeedin lahaa barakallahu wali waxaan ku guda jirnaa gabagabada barnaamijka oo goordhow noo soo idlaan doono si ay xildhibaanka dhinaciga taagan bal sidoo uu arko Kalson TV iyo qaabka uu soo dhaweynayo in TV cusub uu ku soo biiro hawada TV-yada ay ku jiraan afka Soomaaliga ku hadlo aad iyo aad baad u mahadsantiin runtii waa wax lagu farxa in dhagtaydu ay maqasho TV cusub oo dalka Soomaaliya ku soo biiray magaciisana la yiraahdo Kalson runtii waa wax lagu farxa kulli aniga waxay tahay horumar dhammaan shacabka Soomaaliyeed ay gaareen haday noqon lahayd dhinaca saxaafadda oo arrin ku soo korortay runtii waxaan sidoo kale dhiirigelinayaa in loo aad iyo aad lagu soo biiriyo dooda dadweynaha at least muhiim runtii sida dadka loo dareensiin lahaa galgacaylka wadanka iyo wanaaga wadanka uu leeyahay ayaan codsan lahaa inuu barnaamijka Kalson uu ku soo biiriyay dood wanaaga oo runtii waxyaalaha kaliya wax la isku fahansiiyay waxa kaloon aad ugu faraxsanahay ama aan soo dhaweynayaa in loo tababaro shaqaale xirfad dheer u leh barnaamijka idaacadda
aysan runtii noqonin barnaamij qaabkii la rabo loo adeegsado laakiin ay yihiin shaqaalaha loo tababaraya inay yihiin shaqaale xirfad u leh oo runtii Soomaali wax ka bedeli kara kuna soo kordhin kara aniga oo ku hadlaya kuna hadlaya magaca guddiga garsoorka magaceygana la yiraahdaa Aadan Sadiiq ahna gudoomiyaha guddiga garsoorka runtii waxaan dhihi lahaa barnaamij loo baahan yahay oo Soomaali u soo kororay weeye guul u soo korortay weeye Soomaali waxaan leenahay hal TV iyo hal midna ma dhahay waxaan leenahay in kasta dhammaan in lagu baahiyay meel kasta oo caalamka laga daawanayo haddii hadda u gaarsiisan yahayna aad baan ugu faraxsanahay haddii uusan gaarsiisanayna runtii waxaan soo dhaweynayaa in lagu baahiyay dunida dacaladeeda kala duwan oo runtii kalsan xilwaane waxa laga daawo doonaa meel walba oo caalamka isla markaana wuxuu u shaqeyn doonaa danaha dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan marka TV-ga wuxuu yahay TV international absolutely waa arin aad iyo aad iga hoos baxday runtii haddii hawsha ay sidaa tahay farxad laba jibaaray oo aad iyo aad aan ugu sii farxayo weeye waxaan soo dhaweynayaa haddii jeer marka laga hadlayo saxaafadda waa waxa kaliya oo ummad wadan dhan lagu dhisi kara wadan dhanna lagu burburin kara waxaan rabaa si Kalson TV inay noqoto meesha dalka laga dhisi lahaa waxaan leeyahay Kalson TV soo dhawow hawada ku soo biir guul baan ku rajaynaa aad iyo aad baan u mahadsantiin guud ahaan waxaa inta ku eeg barnaamijkii aan ugu talagalnay soo dhaweynta Kalson TV iyo mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya iyadoo maanta aan soo booqanay xarunta golaha shacabka oo maanta ka soconayay shirkii golaha baarlamaanka dhinaca kaamirada waxaa iga saacidayay Ismaaciil idintankuna waa isla Ismaaciil Xamdi Xuseen Faarax oo idin leh barnaamijka qaybihiisa kala duwan ee hambaliyada Kalson TV waxaa sii wadi